دين halkan ka sii wadano muuqaalkan waxaan rabaa inaan dul istaago qodob runtii aad u muhiim ah meelo fara badan kaaga soo bixi doona marka aad internet ka geshid oo aad video fara badan daawatid oo aad waxa la yiraahdo buugaag badan akhrisid waxaan joognaa casrigii informationka maanta wax walba u baahatid click internetka waa ka xiga marka qodobka meelo badan ayuu kaga soo bixi doonaa asaga oo meelaha qaybtooda kaaga dhigayo inuu yahay forex code wax ugu muhiimsan haddana meelaha qaybtooda laga dhigayo forex code inuu yahay waxa ugu liita haddana marba si laga dhigayo hadba qisada ay ku dhex jirta ay ku xiran tahay dabcan balse waxaan doonayaa videoga inaan ku fahamsiiyo muxuu yahay support iyo resistance dabcan qodob kamid ah qodobada ugu faaca weyn forex code sida ereyga ka muuqata support waa shay wax support gareeya oo wax soo dhacay support u sameeyo oo celiya oo sagxad meeshaas aan sagax yiri sagxad ayaan ka wadaa iyo saqaf oo resistance oo saqafka sare ee guriga tarniiga floorka waxa uu taqaanaa roofka ayaa u taqaanaa oo resistance oo wax soo socda celinaya mawduucan waxaan doonayaa si yar oo kooban inaan usoo koobo insha Allah maadaama casharada advanced-ga aynu si fiican ugu sii gudagali doono marka aynu ka hadlano psychological key levelska iyo waxyaalaha ay algorithm ku fahmaan marka ay forex ka trade karinayaan waa hagaag hadaba real quick definition ka support iyo resistance muxuu noqonayaa haddii aan soo koobno support ama sagxad waa heerka qiimaha suuqa uu ku istaago marka suuq jihadiisu ahayd mid hoos u socday suuq baa wuxuu soo socday hoos oo candle baa soo sameysmay candle-adii aynu ka soo hadalnay intuu rabo B baa soo socdo hoos ayuu u socday meesha uu candle-kaasi ku istaago ee uu intaa ka badan dhaafi waayo ayaa waxaa la yiraahdaa support area ayaa la yiraahdaa alright resistance waxa la yiraahdaa candle marka uu dhinaca kale u jeeday oo uu kor u socday alright candle baa kor u socday oo cagaar ahaa candle-ka cagaarka iyo candle-adiisii la socdayba meesha u dambaysa ee ay dhaafi waayaan ee madaxa ku dhufsadaan ay ku istaagaan ayaa waxa loo yaqaanaa resistance marka la soo koobo macnaha ugu dhow uguna fudud waa saas hadaba waa heerka maxaa nari waa level way because marka lagu leeyahay resistance levelka ii sheeg xariijina sidaan oo kale u dhigatid waxa weeye waxa dadka u sheegaysid waa numberkan waa 1.978 waa maxay waa resistance levelka candle-kaas aan u sawiray oo kale dabadii aan dhowr tusaale isha marino iminka meeshaani waxay noqonaysaa support area why because suuqan soo socday ee korkan ka yimi ayaa ku istaagay okay actually suuqan soo socday ee korkan ka yimi xaggan ku istaagay so ayada laftirkeedu maxay noqonaysaa support kale ayay noqonaysaa tan yaa ku istaagay suuqan halkan ka yimi ayaa ku istaagay meeshan kale maxay noqonaysaa support kale ayay noqonaysaa si kale markaynu raacno shumac walba oo kor ka yimi meesha uu ku istaago support ayay noqon kartaa laakiin supportiga la rabo miya oo support awood la miya waa may sidoo kale shumac walba oo kor u socda meesha uu ku istaagana maxay noqon kartaa resistance meesha maxay noqon kartaa resistance bay noqon kartaa meesha maxay noqon kartaa resistance meesha maxay noqon kartaa resistance meesha maxay noqon kartaa resistance laakiin haddaan maanta oo dhan waxaas oo resistance iyo sawirno computerkaagii ama shaashadaadii oo dhan wada xariijimo ayay noqonaysaa sida daraadeed waxaa la isticmaalaa marka support iyo resistance la sawirayo xariijinta ay ku qoran tahay horizontal line ayaa la isticmaalaa waxaana laga sawirtaa support iyo resistance-ga time frame-ka waaweyn 4 hour-kii wixii ka sareeya ayaa laga sawirtaa tusaale ahaan haddii aan daily-ga tago oo aan iraahdo support-ga suuqan ugu hooseeya oo uu gaarimay waa kana why because laba jeer ayaa meeshaan lagu soo laabtay mar waa kana oo suuqan soo daadanayay meeshii ugu dambeysay ee laga taageeray weeye mar kalena waa kana suuqa weyn oo soo daadanayay meeshii laga taageeray support kale xagee noqon karta support kale halkan ayaa noqon karta why because halkan waxa laga taageeray suuqa muddada soo socday kana actually wax badan uma jiro kana wax badan uma jiro moojada higher time frameska supportiga lagu sawirto ayaa ka wanaagsan midka lower time frameka lagu sawirto because dhowr xabo oo waaweyn ayaad ka helaysaa supportigan fiirsidu u weynaa halkan mar baa laga taageeray halkan mar kale laga taageeray halkan mar kale laga taageeray macnaha supportiga u baranaysid ma ahan meeshaan inaad suuqa ka gelisid ee waa inaad ogtahay meeshaan inay support area tahay dadteed annagu supportiga kama galna suuqa oo bay uga ma galno bal ee waxaan bisugnaa supportiga in la jabiyo si aan suuqa kor ugu raacna ayaan sugnaa taasina waa 10 kale oo waqtigiisa imaan doona okay resistance-gana sidoo kale waxaa la fiirsadaa kuwa ugu sarsareeya suuqa ayaa la fiirsadaa like here resistance weeye kanina waa resistance weeye
badana target ayaa laga dhigtaa meelaha resistance-ga iyo support-ga ku noqon karta marka macnaha support iyo resistance-ga oo kooban waxay noqonaysaa waa suuq kor u soo socday meesha laga taageero ee laga celiyo iyo suuq hoos soo socday meesha laga taageero ee laga celiyo alright support waa maxay masaxad waa heerka qiimaha suuq uu ku istaago marka suuq jihadiisu ay ahayd mid hoos u socday suuqan hoos buu soo socday heerkan uu ku istaago waa maxay waa 0.886115 waxa dhahaysa 0.886115 waa daily support area baa leedahay daily support area hayga way meeshaan very strong ilaa iyo goorma ayaa meesha laga taageeray suuqa ilaa 9kii June 2020 ilaa 2021 hadda afka lagu haya December 25 baan joognaa Soomaaliya arag sida oo kale monthly-ga ayaa la tagaa weekly-ga ayaa la tagaa supportiyaasha iyo resistance-yaasha waaweyn meelba meesha ay ka sareyso ayaa laga sugtaa sababtoo ah marka uu suuqu yimaado weekly support suuqu marka uu yimaado waa very strong area waa meel kore weeye waa meelaha ay isticmaalaan institutional traders iyo hedge funds iyo waxaas oo dhan so hadii lagu weydiiyo support iyo resistance waa maxay support waa suuq walba oo kor u socda meesha u sareysa ee laga taageero resistance waa maxay waa suuq walba oo hoos socda meesha laga taageero waa support suuq walba oo kor u socda meesha laga taageerana waa resistance ina resistance suuqa ka soo galno ina ka soo galin mowduucan kuma saabsana ee mowduucan wuxuu ku saabsan yahay in aad fikrad dhameystiran ka heshid support waxay tahay iyo resistance waxay tahay dabcan marka aynu gaarno fiidiyoyada qaybta advanced technical analysis-ka istaraatiijiyadeena aynu isticmaali doono iyo smart money methodology aynu isticmaalayno hab waxa jiri doona support area-dan hadii ay ku beegmato psychological key level aan isticmaali doono laakiin adoo aan soo baran support area waxay tahay ama resistance area waxay tahay ama asalka iyo basic soo baran hadhow psychological key level ku adkaanaysa inaad fahamtid video ku xiga waxaan ku fiirin doonaa waxa la yiraahdo trendiga suuqa iyo trend line ku waxay yihiin daba muuqaalkan muuqaal ku xiga ee noo balana